bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhegeystayaal kusoo dhawaada warka saacadda ee 12-ka doornimo ee warbaahinta Nation. Waxaana idin waramaya anigoo Cabdi Xaajiya. Dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay dagaal saaki waa berigii ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe kaasi oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab. qoraal lagu baahiyay wakaaladda wararka u faafisa ee dowladda ee Soona ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay saaki waa berigii weerar ku soo qaadeen degmada Balcad isla markaana iska caawiyeen ciidanka dowladda. Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay Soona la xiriirtay ayaa xaqiijiyay in madaafiicda ay rasaasta adeegsadeen Al-Shabaab ay ku dhinteen 5 qof oo rayid ah, dad kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana 2 ka mid ah dadkaasi dhaawaca oo aad u darnaa loo soo qaaday magaalada caasimadda ee Muqdisho. wasiiradda qorsheynta iyo biyaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa si wadajir ah u dhagxadhigay mashruuc biyo xireen oo laga hirgelinayo deegaano hoostaga duleedka magaalada Beledweyne. Mashruucan fulintiisa ayaa waxaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ka gacan siinaya dowladda Norway oo bixinaysa qarashaadka ku baxaya mashruucan biyo xireenka ee laga hortagayo fatahaadaha webiga Shabeelle ee soo laabtay ayaa ka mid ah mashaariic horumarineed oo ka socda gobolka Hiiraan. ugu dambeyntiina xarunta baarlamaanka Australia ee ku taala caasimadda Canberra ayaa dab la qoodsiiyay kadib mudaharaadyo intii lagu guda jiray dad muujinaya madaxbannaanida asaliga sida ay boolisku sheegeen. ma jirto cid wax ku noqotay dabkan oo qabsaday afaafka hore xarunta baarlamaanka dalkaasi Australia ka hor inta aan la damanin. waxay daba socdeen dhaqdhaqaaqan mudaharaadyo ka socday magaalada Canberra 2 toddobaad ee la soo dhaafay sida ay sheegeen saraakiisha booliska dalkaasi Australia. warkii saacadda ee 12-ka doornimo warbaahinta Nation FM waa naga intaa dhegeystayaal.